بسم الله الرحمن الرحيم. marka koowaad waxaan rabaa inaad ii ogolaatiin nin culus oo aan arag inuu hadlay oo aan hortiisa ka hadli karin inuu kalimad yiraahdo waa ugaaskayga ka wareeg ugaas oo aadam kaale halkaan ugaaska anaa siiyey معالي الوزير أدنى وما صنعي وحالي نين غيركي سلا يوصل أنا غيره يا هاي ما أنت رواش ده يقطن قرن بارا تنقرن ده وحوي وأمين سناوي تنقرن حلمها محلي لما تيم كان كجرا مرة بوقتي إن أنا وها إلي في سنين تهاي إن وحن كجد وحيو وزير كوائش الخي أدنى مع سيني إذا هو مع سنتين أم باشتور هذا الرجل السعودي وأدنى مع سيني هذا المال اللي عليه يعني مال ومدير أردت حيو صارنا وزير في إنها تجلستان تجلستياش عن كم هاي يسوون أدنى مشاركة مدنية هو مع سنتين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باصدورنا هل كان جوجا ونوجده ويران أفر دنجرة ودلك الصومالية كم تلي دبلوماسية وهو رئيس سفير كنا دلك أمريكا سفير كنا يودا يو إثيوبيا جوجا لو جوجا سفير كنا دولة إنجليزكا هي سفير كني فترانك محمد على أمريكا حلوان كان شرفت له حقيقة جوجت له وزارة عبدي خير صوفي runtii halkan officially nagu soo dhaweeyay maamulka na ka tirsan iyo odayaasha iyo khiyaarta kala duwan iyo haweenka dhalinyarada culimada bulshada qaybaheeda kala duwan dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. reer Columbus Ohio waa salaamantiin sharaf weyn bay tahay runtii maanta inaan halkaan soo booqano oo ay ka mid noqoto booqasho aan ku joognay booqasho shaqo oo aan ku nimid New York oo dhacdadii weyneyd ee taariikhiga ahayd aan gabagabadeedii xaadir u ahayn 52 sano kadib in Soomaaliya ay ku biirto golaha xubin ka noqoto 2 sano soo socota golaha amniga ee qaramada midoobay arrintaas taariikhiga ah oo shaqo weyn oo 6 sano la soo dhaafay socotay meelo badan soo martay campaign xoogan loo galay eed badan dawladdu ay maaragtay u qaadatay oo ay ka mid ahayd maaragtay in Tanzania lagu haysatay annaguna kursi aan u daynay laakiin dawladda Soomaaliya lagu eedeeyay oo dad badan intay banaanka soo istaageen gabdhihii baa maaragtay laga xanaajiyay arrintan oo ah meesha go'aanada lagu gaaro kuraastaas kale waa kuraas iska portfolios kale oo wax weyn oo dalkeena saameyn aan ku lahayn siyaasaddiisa laakiin meesha miiska ay Soomaaliya ku shiraan jirtay ayadoo tabar daran oo sidii la rabo go'aanka loo gaari jiray meeshaan bixi meeshaan marka in wax kasta loo huro oo wax kasta lagu bedesho oo dawladii compromise lala galo haddaadan adigu wax deyn adna wax lagu deyn maayo meeshaan bay ayay ahayd runtii 6 bisha 6 2024 52 sano kadib ayay Soomaaliya heshay 179 cod
runtii mahaddaas iyo gobaalintaas mudan dowladdan ka horreysay oo shaqo soo qabatay iyo dowladdan oo labadii sano u dambeysay bariga Afrika ka soo tuugtay balina noo daayaan markaa oo Itoobiya aan ishayna ay ka mid tahay oo ninkaas warfaay muxuu ahaa safiirkeen iyo tiimka noo jooga sabay shaqo fiican qabteen kadibna Afrika ay tiri konton iyo afarteedii dowladood waa deynay murashax kaliya oo aan la tartamayn oo labada sanadka 2025-2026 waa Soomaaliya haddana adduunkii ilaa Afrika uma filayna konton iyo afar dowladood way 124 cod baan u baahnayna in missionkeena New York jooga oo safiirka Abubakar Baale iyo tiimkii ay arrintaas marka arrin waxay ahayd hoos laga soo dhalaantiriyay kuna soo dhamaatay 6 bisha arrinta taariikhiga waan u nimid bar haddaan nimid waxaan nidhi marka waa in community la arkaa meelaha ugu waaweyn laba meelood baan calaameynay idinkuba saa sheegteen Minnesota kuma haysatiin number 1 inay tahay sidii halkan laga sheegay dadkuna way sheegeen anuu ma sheegin meesha labaadna idinkaas ku calaameeyay oo halkan way inaan haddana caawa ku soo khatimayno booqashadeennii halkan waxaan runtii rabaa inaan u mahad celiyo marka jaaliyadda guddoomiyaheeda iyo tiimkii ballaarnaa ee odayaal iyo culamo iyo dhalinyaro lahaa ee runtii sahlay inaan nimaano halkan oo maaragtay waxbaa la sheegaa la yiri nimanka reer awowgay waa isnaqan awowgay baa dhalinyaro ka tirsan baa la yiri xoogaa waxbay tuuri doonaan ukun bay tuurayaan oo ukunta lafteeda u baahanaan laakiin waxaas waa iska rumors bay ahaayeen baan leenahay ma ahayn wax concrete oo adag oo odayaashii iyo jaaliyadda iyo kulli waa joogaan halkaana in madaxda Soomaalidu intay timaado ay dadkan aragto sharafna madaxdana sharaf ay u tahay meeshan Columbus Ohio sharaf ay u tahay oo community-gan inay dadkoodii barbaristaan ilaan community-gan dadkay ka yimaadeen originalka qofaan qaraabo iyo ehel ku lahayn dalka gudihiisa ma jiro dalkii halkaas ahaa in laga wareysto oo su'aalo la weydiiyo oo concernka dadka ay qabaan la isweydaarsado community-gana way u fiican tahay madaxdana way u fiican tahay marka aad iyo aad baa u mahadsan tihiin guud ahaantiin laga bilaabo Sofe iyo guddoomiyaha iyo dhammaan tiimkii qabanqaabada mahad ballaaran baan idin jeedinayaa wax badan oo aan sheegaya malaha oo dadkii oo halkan ka sheegay waxna talooyinna waa la dhiibtay dadka qaar meelo yaryar oo gubayana dadka qaar meelo yar oo gubayana way sheegeen oo community-gii labadii wiil oo halkan soo istaagtay oo maaragtay bulshada community-ga jareer weyn jubbada dhexe ka hadleen SSC khaatuma de waa anaa ka tirsan gabadhii la waayay iyadana waa la sheegay dhammaan waxbaan ka leenahay waxaasoo dhan waxaan rabaa marka koowaad inaan u tacsiyeeyo nin odaya waan isku deegaan ka soo jeedno oo Mahdi taakilo la yiraahdo oo halkaan ku dhintay ilaahay u naxariisto faatixada aan u marno ilaahay maaragtay inuu naxariisto ilaahay ha u naxariisto dowladnimada
inteenaan waxaa naga dhaxaysa wax badan, waxa naga dhaxeeya ayaa ka badan waxaan ku kala duwannahay. marka dadkeennuna waxay ku mashquuleen oo ku habsaameen in waxaan ku kala duwannahay mar walbaba miiska la soo saaro, oo boqolkii shay oo lagu midaysnaana gadaal aan dhigano, taasina ay mustaqbalkeennina seejiso annagoo ku murmayna laba shay oo aan isku diidannahay. wixii tirada badnaa iyo mustaqbalkeennii oo dhan intaas ummaduhuna waxay ku heshiiska yihiin bay soo hormarsadaan, waxay ku kala duwan yihiinna sidii loo xallin karaa loo xalliya. dowladnimada Soomaaliya waa qor isku dhiib, waa dal turid u baahan. dalkeena wax in la saxana anugu dadka boqolkiiba boqol ra'yiga kale iyo freedom of expression dadka Soomaaliya u taagan oo in wax la caburiyo diidan ayaan ugu horeeyaa weligeena sidaas ah. caburis lama ogola. marka in dad intay ra'yigooda cabiraan system jira ay yidhaahdaan saan ugu ficnaan laha, laakiin bicaynihi in la yidhaahdo hebel baa madaxa ama hebel oo reer hebel ah meesha jooga sidaas awgeed reer hebel baan u nacay, hebel kaloo igu reerana hadduu yimaado wuxuu raba ha qaso waa ii fiican yahay, taas way mid aan fiicnay. dalka Soomaaliya hal caqabado weyn baa ka jirta. factions iyo jabhaday ahaayeen 2006 baa laga taqalusay jabhadii. 2006 iyo hadda waxaa u dhaxaysa 16 sano. 16 sano markii la joogay ayaa jabhadii dhammaadeen. maalinkaas haddana waxaan ugu bilowday kooxo kale oo masaajidii iyo dadkii aan la dili jirin dilaysay, institutionskii iyo dowladnimadii ka soo horjeeda. waa kooxaha khawaarijta aan u bixinay oo culimmada Soomaaliyeed ay u bixisay 2 sano ka hor shir Muqdisho lagu qabtay. dowladdu 2 sano oo hadda la soo dhaafay runtii waxay xoogga saartay in laga kaxeeyo kooxahaas dekedda iyo Muqdisho hareeraheeda iyo suuqa Bakaaro iyo meelihii dadka ay ku baadi jireen oo hadda ceel buur duleedkeeda lagu horeynaya. shalay ugu dambeysay baad maqlayseen ceel dheer intay soo weerareen in si xun lagu galay. ceel dheer kuma taalla meesha 300 iyo xoogaa kilomitir waay. galgaduud iyo mudug meesha iska galaan waay, degmada geeska u xigta oo galgaduud meeshaas intay soo weerareen in halkaas lagu laayay oo laga celiyay oo ciidanka qaranku ay maaragtay baabi'iyeen. yacni shaqadaas shaqo sahlan maahan, waa shaqo dhiig iyo dheecaan iyo wax badan ay ku baxayaan. arrintaas dowladdu waxay uga baahan tahay gaar ahaan culimmada iyo odayaashii iyo dadka waxgaradka dagaalkaas horta inaan u kala harin oo ciidanka xoogga dalka la garab istaago. culimmada haddeertaan la kulmaan arkay waxaan ku yidhi meesha abaaraha iyo lacagta looga diro waxaa mudan dowlad dhiskeena in lacagta loo diro, waayo abaarta dowladda laga rabaa markay dhisanto xoogaysato iyadaa dadkii u gurmanaysa xoog markay yeelato. laakiin mar walbaba dowladdii inta meel la iska dhigo ayaa waxyaalo kaleoo dowladdu ay qaban lahayd hadday xoogaysan lahayd oo la xoojin lahayd oo xooggeenna oo dhan aan suu geyn lahayd, dowladda wixii aan ku xoojin lahayn baan inta kala leexanaan wixii dowladdu qaban lahayd baan qabanaa. marka aniga waxaan dhahaa arrimaha dowlad dhiska ama dowlad goboleed ha ahaato ama dowladda dhexe ha ahaatee, arrimaha dowlad dhiska aan sanduuq u samayn. qurba joogta Soomaaliyeed Columbus Ohio hadba waxbaa looga daydaaye aan dhahna meeshii bilowday waa oo caawina koorka qandhig. taasi waa taas oo waa xagga amniga. xagga internationalka iyo diplomasiga Soomaaliya runtii guulo waaweyn ayay gaartay, waxaana keenaya guulahaas gudaha wixii laga qabtay. gudaha haddii aan waxba laga qaban
cidna ku aamini mayso shaqadii gudaha laga qabtay waxay keentay in cunaqabatayntii hubka la qaado cunaqabataynta hubka maxaa loo qaadi jiray soomaaliya sanad walba way weydiisan jirtay 10 sano lasoo dhaafay way ku dhici jirtay waxaa la sameeyey shuruudo iyo requirements waxaas haddaa ka soo baxdaan waa laydinka qaadaya benchmarks wax allaaliya wixii la dejiyey siday ahaayeen baa looga soo baxay markaasaa lagu dhawaaqay in cunaqabatayntii dalka qaaday waa guul iyaduna dayn cafiska waa la mid shuruud bay lahayd shuruuc bay lahayd wixii oo dhan baa la hirgeli kadibna suuqii aan dariska ahayn oo weynaa oo East African Community oo aan ognahay dadkeennan bayskooda u weyn inuu ahaa ama Nairobi, Tanzania, Uganda, South Sudan ilaa iyo maaragtay Rwanda dadkeena lacagtoodii u badnayd meeshay geliyeen ah Congo ayaan bulshadeennuna halkaas jirtay halkaasaa shuruudihii la rabay iyadana laga soo baxay waa lagu biiray waa guul kale oo dadkeena usoo heetay tii u dambaysaan kusoo khatimaynaa marka diblomasigana kaasaa laga galay gudihii iyo dowladiskii waxaa weeye dastuurka dowladda waxaa aasaas u ah waa dastuurka waa ogtiin dastuurka maraykanka waa horaa la dejiyey qodobadiisu xitaa waa kooban yihin intaa gaar si fiican baa looga shaqeeyay dadkiisaana ka shaqaystay dastuurka soomaaliya waa markii koowaad 30 sano ee hadda dalku uu burbursanaa oo baarlamaanka soomaaliya la hor keeno dastuurkiisii uu ka doodo awal wax ready made oo Ethiopia ay wadato ama dowladaha kale oo dariska ay ku lug leeyihiin oo qodobkay rabaan qaloocinayaan sidee rabaan u qoriyaan ayaa naloo keeni jiray maantay dastuurkii wuxuu rababa cilmiga dadka xildhibaanada ah intay rabaan ha gaarsiisnaada laakiin dastuur ka soo maaxday maskaxda dadka Soomaaliyeed oo daaweynaya doorasho hadday noqoto iyo hadday federalismkii noqoto federalismkii wuxuu noqday in loo fasirto sida shabaabku ay u fasirtaan diinta kale oo nin walba maskaxdiisa uu ka doono oo yiraahdo sidaana ila quman wax sharci uu ku fadhiyana uu soo jiray shuruucdii federalismkii waxa laaliyo wixii federalismku ku fariisanay oo shuruuc ahaa dastuurka waa la dhexgalay ama ha ahaadaan khayraadka sida loo qaybsanayo ama awoodahaas noocay kala yihiin awoodda dowladda dhexe awoodda dowlad goboleedka awoodda dowladaha hoose ama ha ahaadaan muxuu ahaa ciidamada heerarkigooda maxay dowlad goboleed yeelan kartaa maxayse yeelan karin oo federaalku yeelanayaa militariga iyo nabad sugidda waxaa loo xilsaaray federaalka booliisku wuxuu noqon karaa maxkamaduhu see noqonayaan wixii oo dhan waxaa laga shaqaynayay 2 sano la soo dhaafay markay u yaraato 12 kulan oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay galeen ayaa waxaas oo dhan lagu finalize gareeyay iyaduna dastuurkaana la dhex gashay suurtagal ma ahan in la yiraahdo dalka Soomaaliya waa federaal haddana federaalkiisa qofaa soo raba isaga fasiranaya waa la dhex gashay dastuurka socdaana hadda saas uu ku qotoma xildhibaanadii waa joogaan xildhibaan baa nagala jooga iyo xildhibaanada kale waxay ku ammaanayeen inay dhammaan xargihii ku xirnaa oo qabiil ha ahaado ama xarga dowlad goboleed ha ahaato intay ka soo farabaxsadeen inay ku dhiiradaan markii koowaad taariikhdaas hadda aan sheegayno in dastuurkii dalku uu lahaa looga doodo baarlamaankiisii oo baarlamaanka dadweynihii ay ra'yi ku yeeshaan oo loo furo windows ay ra'yi ku soo gudbiyaan qaarna si toosaba loola fariisto arrintaas runtii guul ka weyn ma jirto qayladhaan way jirtaa ka daba yeeraysa oo niman siyaasiyiina oo raba sanad walba marka la gaaro 4 sano ay dhamaato boorso lacagaha carabaha inta laga soo qaaday inta la keeno xildhibaano 329 wixii la siin kara inta la siiyo in madaxweyne sidaas lagu noqdo niman odayaal oo sidaas ka rabo way iska dhici kartaa inay jiraan laakiin guud ahaan dalku qof iyo cod baana la rabaa in la geeyo meeshii xildhibaanka 101 qof dooranaysay inay doorato 50 kun 40 kun wixii dooran kara inay doortaan halkaasaana dalka loo jiheeyay waxaana
boorsadii laga keenayay meelaha kale saasay ku dhammaanaysa teendadii jinniyo sanad walba looga nixin jiray 30 qofood intay halkaa fadhiistaan hebel 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 adduunka ma jirto doorasho sidaas loo galo wadnaha go-aya dad maba ma laga ma fiyoobaan karo qof inta hortiisa lagu yeeriyey waxaa rabaa intuu seexdo isagoo degan inuu soo tooso tiimkiisii kambeynka u sheegaan oo natiijada waa heshaa ama maaragtay maad ahayn laakiin halkaa inta fadhiisid maantoo dha hurdood magacaada marka la yeeriyo madaxa kor u qaad arrintaa lagama bixin karo ama cali america soo galay hala weydiiyo marka waa wax dhib badan waay waa cadaab waa ciqaab waa 4 sano oo dadka noogu fiicnaa oo aan ciqaabayna horteena aan ku cadaabayna ninkaasi ma fiyoobaan karo haddaad aragteen rag murashaxiin oo isla markiiba boodaya waxaasaa ku dhacay waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado dalka midnimadiisa iyo wadajirkiisu waa qodob kaloo weyn oo dowladdan hadda ay u istaagtay dalkeennuna khatar buu ku jiray waana la bulaalinayay 30 sano iyo ka hor iyo gumayste soo jireena oo dalka markii horena kala qaybiyey markaan dambena deriskii iyo wixii oo dhan iska kaaya maaragtay gacmaysteen midnimadiisuna ay adkayd waqti adagoo loo baahnaana reer khaatumo ay soo baxeen oo runtii khatartii weyneyd oo dalka soo waajahday kala go-is rajo iyo iftiin inay halkaa ka soo muuqatay taasna dowladda Soomaaliya kama aysan gaban lagama xishoon lama xeerin waxyaalo badan oo la xeerin jiray si publicly ayaa loo soo istaagay arrintaasna loo garab istaagay maantana ay sidaas ku guuleysteen oo ku joogaan wixii dhiman waa la dhammaystirayaa waa iska process dalkan process baa arrimihiisa oo process baa la geliyaa ayaga laftirkooda intay lugaha dhulka ku hayn karaan in la ogaado weeye ayaan marka meel fiican bay joogaan so far waa ku mahadsan yihiin ree awdal waa la mid iyagana muuse wuxuu lumiyey kalsoonidii hadda kadib in la yidhaahdo wax backage somaliland la yidhaahdo oo backage isku jira waa dhammaan waxaa weeye nin walbaaba gobolkiisa sida gobollada kale oo maamul ay u leeyihiin hadday soo istaagaan oo yidhahdaan maamulkeennaan samaysanaynaa dowladdu way soo dhaweynaysaa wayna taageeraysaa lamana sugi karo inta muuse 20 kilomitir buu hadda gaday intuu 20 u beecbeeciyo lama sugi karo arrintaas marka waxaan ku soo gunaanadayaa akhyaartii kala duwaneyd gabadhii maqnayd hooyadeed baa joogta maxkamaddii gudbisatay wiig ka hor baan u malaynayaa keyskeedii waa table grace maxkamaddaan ka sugaynaa ilaan cadaalad weeye kiis cadaaladeed weeye annagu hebel baa dilay iyo hebel baa qaatay midna ma dhihin maxkamaddaa laga rabaa inay soo xaqiijiso meesha gabadhaasi hadday go-aan saxa oo cadaalada oo pressure aan ku dhisnayn oo laaluush aan ku dhisnayn oo qari aan ku dhisnayn na inay maaragtay arrintaasi iyadoo ka fog in gabadhaasi cadaaladdeedii hesho waalidkii dhalay oo dhowr jeer ooyey oo ummadda horteeda ka soo baxay oo wasmatu caar baa la yidhaha wasmatu caar yacni weji gabax ceeb wejiga dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo dowladdii ku taallo waay marka arrinta